qabciya kibir marna qaadan mayse Soomaalidu qabciya kibir marna qaadan mayse waxaana la ka qaban waayo qarqarsiga ku jooga mayna qof saclayo qaar kaloo kaliito u qaarabanaya Soomaalidu qabciya kibir marna qaadan mayse Soomaalidu qabciya kibir marna qaadan mayse waxaana la ka qaban waayo qarqarsiga ku jooga mayna qof saclayo qaar kaloo kaliito u qaarabanaya gumaysigii qiisha galayo burumuhu xorobe qaybidin helay haka qayliminaba maqarnigan gumaysigii qiisha galayo burumuhu xorobe qaybidin helay haka qayliminaba ورحدي حرني مديو قرني من على الليو عنك قوس ديني أصولي ونما ديكي غلوع لتهيو عنك قوس ديني أصولي ونما ديكي غلوع لتهيو عنك قوس ديني ورحدي على الليو عنك قوس ديني نبض قالي وهي في قيم الردي وينو قريبتي نبض قالي وهي في قيم الردي وينو انت انت قبل اخر كسر بنايا هداك انا قبيض تهي على الكواس جاي ملوع لتهيو وينو قريبكي انت انت قبل اخر كسر بنايا هداك انا قبيض تهي على بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه ثم أما بعد إخواني أخواتي السلام ورحمة الله وبركاته سلامتا كدب إلهي بأم هذله تبارك وتعالى مانتا إنه سامحي أم بإنه قدري إننا نسكوه مر لبعض أن صوف ريسانو مجلس قالقة يعني هذه يجير كلنا أنك أو كلفة إلي سننا إن شاء الله تعالى إخواني والليال مانتا وحان كهل دونا هدو إلهي لهدو تبارك وتعالى موضوع آدو خلات آدو كلل
aada u daran aanan wanaagsanayn ayaan ka hadli doonaa insha allah. mowduucaas waxa weeyaan hadduu ilaahay dhahdo qaraxyada magaalada caasimadda dalka soomaaliya ama caasimadooda muqdisho xamar cad ka dhacaysa ee aan kala go-ayn inaan kelmad aan ka dhaho. geerida sida xun loogu dhimanayo dalka jabuuti eenan war laga hayn idna inaan ka idhaahdo kelmad kooban ayaan jeclahay caawa insha allahu tacaala. walaalayaal, mowduucaas waa mowduuc muhiima. inta aanan mowduuca gelin laba araara ayaan jeclahay, laba hordhaca inaan ka idhaahdo. waxaan dhegaystay siyaasiyiin fara badan oo arrinta ka hadlaysa qaraxyada soomaaliya ka dhacaysa. siyaasiyiinta oo iskugu jira kuwa dowladda imika maamula, madaxweynaha iyo kuwa la shaqeeya dhammaantood, duqa magaalada iyo ragga amniga ka taliya caasimadda muqdisho. waxaan dhegaystay mucaaradka madaxdooda oo madax soo ahaan jiray iminkana mucaarada, iyakana waan dhegaystay. waxay ku kulansan yihiin laba arrimood raggaasi. arrinta koowaad, dhammaantood waxay yidhaahdeen kelmadda sharciga ah, inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. waan ka xunnahay geeridaa foosha xun lee dhacday, wixii dhintana ilaahay u naxariisto, kuwa xanuunsan ee dhaawacmayna ilaahay ha caafiyo. saas bay dhahdaan, alraxmatu lilshuhadaa waashifaau liljarxa. shuhadadiina waxaan ilaahay uga rajaynaynaa inay tabaaraka wa tacaala u naxariisto, masaakiintaas meeshaas ku xanuunsan ee ku dhaawacantayna inuu ilaahay caafiyo. waa duco wanaagsan, ducadaas bay akhriyaan. arrinta labaad waxay dhahdaan, waan cambaaraynaynaa, waxaa ka dambeeyeyna xarakada la dhahdo shabaab almujaahidiin oo u baahan in laga hortago. waa cadowga soomaaliyeed oo dibadda inaga soo galay. intaas bay ku celceliyaan. waa misig la tumayo oon dhammaad lahayn, in la duceeyo iyo in la cambaareeyo, in la duceeyo iyo in la cambaareeyo, in la cambaareeyo iyo in la duceeyo. waxaad moodaa madaxda soomaalidu inay la mid yihiin madaxda carabta. mar kastii oo falastiin dhibaato loo geysto, carabtu waxay dhahdaan waan ka xunnahay, waan cambaaraynaynaa, waxna ma qabtaan. falastiinna sidii unbaa loo garaacaa, qazana sidii unbaa loo haystaa, sidii unbay 10 sano gaajo ugu jirtaa, sidii unbay qudusna isticmaalka hoostiisa u yuurartaa, sidii unbaanan caasimad looga dhigay abadiya oo israa'iil ay leedahay oo laga xafuujiyey amba laga qaaday dhammaan wixii falastiiniya, maamulkii falastiin, asiyaada alcarabiya, maamulkii carabta, asiyaada alislaamiya iyo maamulkii islaamka, xataa asiyaada almasiixiya iyo tii kristanismiguba ay nebi ciise uu ku dhashay meelaha calayhi salaam. waxaas oo dhan waxay ku tusaysaa walaalayaal, dadku marka ay yihiin dad isdhiibay, dad jabay, dad aan xal iyo solution hayn, labada kelmadood bay dhahdaan, waan cambaaraynaynaa, waan ka xunnahay. kuwa kaleeta ee na weeraraya ee na dhibayana iyaku hawshii unbay sii wataan. marka waxaa dhahdaa alumam alfaashila, ummadaha fashilmay way hadlaan, wax ma qabtaan. ummadaha najaxayna fikir bay keenaan, fikirka ay aqoon-yahanku keenaan, khubradu ay keenaan, siyaasiyiinta qaata, way hirgeliyaan. ummadaha nool noloshaa socota, ummadaha nolosha ka dhacayna noloshaa ridiqda, noloshu way ridiqdaa. marka sidaa daraaddeed aad baan uga xumaaday nin madaxa oo wax uun qaban kara iyo ninka shicibka ah iyo ninka wadaadkii miskiidka fadhiya iyo ninka maxaanku idhahdaa mucaaradkii inay isku hadal noqdaan oo hadalkoogu uu noqdo uun waan ka xunnahay, waan cambaaraynaynaa, inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. bas halkaana ay ku dhammaato, 2 bilood 3 bilood nolol fiican la bilaabo, haddana ay qaraxi dhaco, intii aan kusoo celino misiiga un aan tumayno ilaa aan ka qabri galayno, ummaddeennuna ay nolosha kusoo noqon kari weydo. marka arrintaas aaraar bay iga tahay. arrinta labaad ee aaraarta iga ah waxa weeye walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala bini aadanka waxyaalada uu ugu faano, uu ku galladaystay ee uu ugu sheegsto inay galladiisa tahay, waxaa ka mid a ammaanka, al-amn. kelmadda ammaan la yidhaahdo waa kelmad aan sharxi doonno maanta oo qaali ah. qofku inuu haysto ammaan,
nabad inuu ku nool yahay nabaddu waa wax qaali ah walidaalika buu ilaahay qur-aankiisa suuratu quraysh baa loo yaqaanaa waa suuradda quraata ee quraysh lagaga warramay magaceega liilaafi qurayshin iilaafihim rixlata ashitaa'i waasayf suuraddaas magac baan anu u bixiye la idhahdo suuratu alamn ashaamil suuradda aan ku tilmaami karna inay ka warrantay security socialka social security maaragtay nabadgelyada dhinaca bulshada alamni almujtamaci mujtamacu markuu ammaan helo sida uu inuu ahaado ay tahay waa sidee waa siduu ilaahay maka ku tilmaamay ilaahay wuxuu yidhi atcamahum min juuc wa aamanahum min khawf ilaahay wuxuu yidhi subxaana wuxuu ka badbaadiyey uu ka nabadgeliyey waxa loo yaqaana baahida joogtada ee caloosha marka ay buugaanta qorayaan ay dhahdaan alxirmaanu waalfaqru watakhalluf waa saddex sulaasiya xirmaan inay dadku waxba haysan kadibna ay baahan yihiin kadibna ay dib u dhacaan alxirmaanu waalfaqru watakhalluf amnigaas hadduu qofku waayo waxba haysan nolosha uu ka quusto beri markuu soo kaco uunan gelinin wuxuu cunayo iyo wuxuu cabbayo iyo meesha uu wax ka soo qaadayo oo noloshiisa dhan uu ku saleeya shaxaad inuu wax soo shaxaado uu dad soo shidaaro qofka ka fakra jeebkiisa lacagtiisa ku talagalo haadaa waxaa dhahdaa qofkaasi waa qof quusan nolosha uu ka quusan yahay wax kastuu samayn karaa marka waa xirmaan nolol ma hor taalo nolosha waxaa ka dhasha noocaasa baahi faqri baa dhasha ballaadhan fidsan baahsan baa dhasha faqrigaa waxaa ka dhasha takhalluf dib u dhac baa ka dhasha ولذلك بو إلهي كل دقال من هذه الآية القريبة يابك بدن العجيبة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع حرمان مجرى قاجة مجرتو فقرنا مجرى تخلفنا مجرى مركا محاد عيا وآمنهم من خوف عبسينا مركا بالله نبت قلي وبدا وحيستا إن ندركوا النولين وحوال بقونا يرين وحوال بقوا فريا هي وبدنيا هي kama fikiraan nolosha inay dumiyaan laakiin ummaddu markay waxba haysan dadku waxay ku kulmaan inay nolosha dumiyaan hadday kol ka fikirayaan nolosha inuu dumiyaanna qof kasti baa ka faa'iideysan karaya marka aaraarta waxaan ula jeedaa suuradda waxaa laga yaabaa inaan salaada ku tukanno xataa dumarkeena qur-aanka aan aqoon inay yaqaanaan hadihi suura laakiin maa dalaalaatu hadihi suura maa cumqu hadihi suura suuraddani halkay tagaysaa maxay inaga dhaadhicinaysaa فلسفتي حنبار سنتهي محيتهي وإنه يرتاح إخواني في الله مركا علاقة كده حيث حرير با كده حيا بين الجوع قاجدة وبين انعدام الأمن هي السكرتي إنو نجي الأمن إني أمان جرين هي باهدة هي قاجدة علاقة كده حيث حرير با كده حيا ريليشن با كده حيا غيلاسيون با كده حيا مجري كارون ميل أي قاجة تالو أمان ميال قف كده أمان باجرة وبين أمانك waxaa loo yaqaanaa culumta iminka socialka ee bulshada al-amnu al-wahmi waxaa loo yaqaanaa imagination waxa la iska dhaadhiciyey waa amni baana amba waxaa loo yaqaanaa al-amnu al-muhayya waa amni u diyaara lil-inxiyaar inuu dumo maxaa yeelay waxaa yaala wixii duminayay security socialka oo dhan iyaa yaala marka walihaada ikhwaani fillah labadaa aaraar waxaan ugu talagalay in caqligeenna aanu ka fikirno waxaan galaynaa موضوعنا وحكى يا مقدشو يا قرحيضة جيبوتي يا دمشقة مقدشو يا جيريدة كإيمان هيسا قرحيضة يا جيبوتي يا جيريدة كإيمان هيسا جيرويكا يا عذردا يا باهدة يا قاجدة والله بدا وضن لا نهاي وكسوغن حالد لا حالد معها ومالك بحسن تاريخ ده هامش التاريخ بيكون نوشاي إخواني في الله إلهي مركو إن أبوري تبارك وتعالى هدان بني آدم نهي وحو إن غيري وحاتهين ضدك أن خلق مخلوق أردن إني كان إني قوش على لماذا؟ لأنه وحا إني قوش الله دايستي لبا الرمود أو لبا الرمود أي كده لنا يام كو وحا إني قوش الله دايستي عقلي مان وحا إني قوش الله دايستي روح سبحانك يا ربي عقلي لما حاكد لنا يا وحاكد لنا يا فكر بعد كانسة نرش لغو وضو حيوان كاد كدو انت يستان شيء دونه لابو روح ده محاكا دنيا حربة طيب قفك ان روح لهين حر معها حيوانكو روح ماله حيوانكو جد دقاقة يو إلهي قري أود كله
marka muxuu ku nool yahay qariisuu ku nool yahay iraado male rabitaan male ma kala doorashooyin ma kale leh hab baa loo rabeeyey habkaabuu maraya laakiin insaanku qofka bini aadamkii waxaa la siiyey iraada waxaa la siiyey mashiica waxaa la siiyey inuu dooran karo wax saxa iyo wax qaladka inuu kala garan karo kadibna uu caqligiisa isticmaalayo labadiiba waan xidhnay waxaan soo dhignay arshiifka saa daraaddeed waxaan u baahannahay ikhwaani fillah inaan baranno atafkiir sidee loo fikiraa war tafkiir marka aan ka hadlayo waxaan u jeedaa ma aha inaan gidaarka fadhiisanoo fikirno 3 nooc oo 4 nooc oo loo fikiraa jira التفكير الحيواني باجرا حيوانكو او فكرة محو كفكرة حيوانكو وحو كفكرة waxaan soo socda kow uu baahda galmood buu doonaa uu doona jinsigii kale okay qofka inta uu caawa soo kaco gabadhu la seexan lahaa ka fikiray maaha mufakkir waa xayawaan xayawaanku uu fikraa wuxuu ka fikiraa wuxuu maanta cuni lahaa ka intuu galaa uu soo boobaa qofka ka fikiraya wuxuu maanta cuni lahaa inuu helo maaha insaan waa xayawaan حيوانك uu gaajooda uu haraada wuxuu ka fikiraa inuu biyo cabo sida imika aan biyaha u kabanayo qofka inta ka fikiray waa xayawaan alxamdulillah xayawaanku uu fikiraa uu ilmooda uu daala wuxuu doonaa meel wanaagsan oo uu ka nabad galo in la soo weeraro caawa uu ka gali kara xayawaan soo weerara iyo qof dila meel raaxa la ayuu doontaa sida bisadoo kale wad aragtay way gogolataa meel fiican way seexataa qofka ka fikiraya inuu sariir fiican helo mukayaf iyo maaragtay qaboojiye fiican uu helo oo uu hoos galo oo markaana uu hoos seexdo maaha insaan waa xayawaan xayawaanku uu fikiraa wuxuu ka fikiraa muhadidaad baa jira waa lagu soo weerarayaa waxaa ku soo weeraraya xayawaan kaa xoog badan maxaad ka samaysani gaashaamayse sidaad uga baxsani halkeed ka gali khuduu dhigaa planik buu dhigaa xayawaani ah insaanka ka fikiraya waa lagu duliya dhuumo uun adu keligaa dadka kale waxa kaalama socdaan maaha insaan waa xayawaan nooca culumadu waxa u yaqaanaan culumada baadha cilmiga tafkiirka التفكير الغريزي amba التفكير الحيواني waa systemka ay xayawaanku u fikiraan qof kasti oo shantaa shay ka fikiraya waa xayawaan qof halkan jooga oo le maanta raashinku wuxuu ka dilaacay xamar u shaqo tag hargeysu ka dilaacay hargeysa u shaqo tag jabuuti baa meel lagaga toojiyey jabuuti u shaqo tag ka soo baxso kanada taalay kanada imo ka baxso baari tago baari tag هذا النوع من التفكير وحيواني ما تفكير إنساني لبو وحويا درجة اللبات تفكير كاللبات المحوية والتفكير البدائي وضدك انت كسر سرك عين سي عادي او فكرة سي ناتشرال سي بدائي او فكرة وحويا وحادعي كرا دقال محان يلا وحادعي كرا مارتي ضد با هشينيا محان يلا maxaan u baahanahay laxdadan waxa dhacaya doorashooyin maxaan yeelaa noocaasina waa nooca tafkiirka waa tii kaymaha berigii hore marka laga soo baxay ee geedka loo sibiday habkii loo fikiray weey maxaan yeelaa imika uu laga fikirayo oo hore loo sii dajin tafkiirkana waxa dhada at-tafkiir al-bidaayi okay tafkiirka saddexaad waxa dhada waa tafkiirka ka sareeya waxa dhada at-tafkiir an-nawci waa tafkiirka lagu sameeyay dawladaha war annaku ma kala adkaanayno annaku ma kala maarmayno maxaan yeelaa waxaan u baahanahay wax inteeno dhan noo dhaxeeya oon ilaashano oonana ilaalisa hadiya dawla tafkiirka nawciga lagu sameeyay بريجي هور الدولة دقولها سميني سحودة هو قبسليسي سيدا بقرطين السعودية المملكة العربية السعودية وضيبها قبسلي عبد العزيز هذا dadkii uu adoomiyay reerkiisii buu dhibay ilaa maanta way xukumaan sacuudi oo dhawaasida khaliij ko dhali wadanada maaratay barigii hore Yurub saabay han jirtay hatta caalam islaami amawiyiintii cabbaasiintii saa jireen laakiin dawlad xadiisa waxa la gaaray dawlad sidii nabigu sameeyay dadku ay sameystaan ilaalishadaan dhowraan koriyaan kobciyaan hareeryaha ka joogaan iyaduna ilaalisa kobcisa hareeryaha ka joogta ومنافع متبادلة مع الدولة هي ضدك أيودليين عقليات داس واحد هذا التفكير النوعي ضدك الدم بقى أنت سكوي مادين بيشران ضدك كما هلان ما أنت وحاكد على مجالات مقدشة ما حاكد عي وحاكد عي قرح ما هي الله هاي هنقول منه لعجها هنقولينه أنا سكسي حن هذانا ما أنت داد بعد عي دول كيبو روب الدنيا ما هي الله هنقولينه هي عنه ما أنت ما حد عي waxaad roob xun baa Djibouti ka daay maxaan yeelaa han ururnahay yaacna hadii joogsan hadana maanta maxaa dhacay hada tafkiir bidaayi saadish waa tafkiir caruurnimo waa muraaqa siyaasiya waxa loo baahan tafkiir nawci
tafkiirka saddexaadi waa kaa weeye waa kan keenay waxaan maanta aanu haysano weyaan ee yurub ka jira ee america ka jira ee canada ka jira ee australia ka jira ee iiraan ka jira ee maaragtay turkiya ka jira ee malaysia ka jira ee ciraaq maaragtay markii sadaam laga duminay maanta halkii waxaa dhan waxa keenay waxa weeyaan waa tafkiirka bidaa'iga iyo tafkiirka caqlaaniga ah amba nawciga tafkiir sida afraad ee loo fikiro waxa weeyaan waa tafkiirka istiraatiijiga waa istiraatiijiyadu maxay sheegaysaa istiraatiijiyadu saddex shay bay sheegaysaa in la joogsado oo su'aal la isweydiiyo maxaan nahay maxaan rabnaa maxaan hor yaalla maxaan nahay waa in laga jawaabo maxaan rabnaa waa in laga jawaabo maxaa ina hor yuurara oo dhibaato ana waa in laga jawaabo kadibna lasoo bandhigo solution xuluul xalal kadibna xalashaa la hirgeliyo iyada oo loo dhan yahay هذه هي التفكير الاستراتيجي وضدك ووين ساس بيسميها ساس بو كيسنجر وحول هذا مريكان كبير يهر waxa ka shaqeyn jirnay inuu kor u socdo oo adduunka wada qabsado imika waxaan ku dadaalaa in maraykanka la ilaaliyo inuu na soo dhaadhicin liana quwado kala hirdinaya marka waa inaan awoodiisa ilaalino si uunan u soo dhaadhicin waa tafkiir istiraatiiji kanada waxa la ilaaliyaa rafaahiyada mujtamacu waa mujtamac la koriyay oo gaadhay darajatu rafaahiya inay dadku gaajoon ay hore u socdaan sidee loo ilaalinaya laga fikiraa waxaa laga fikiraa israa'iil cadow badan baa inagu meersanay iyagu iska dhaadhiciyeen sidee baan iyakana u duminaa annakuna u joognaa iiraan waxay ka fikirtaa sidee baan u ahaanaa awood dibadda ku fidda gudahana iska ilaalisa dhexdana is haysataa turkigu wuxuu ka fikirayaa sideen u noqonnaa lambar aan dib loo celin karin waxaa laga fikiraa sidaa soomaalidu maxay ka fikiraysaa jibuuti maxay ka fikiraysaa tafkiir istiraatiijiya ma jiro tafkiirka istiraatiijiga jira waxa weeyaan waan ka xunnahay waan cambaaraynaa tafkiirka istiraatiijiga jira jibuuti waxa weeyaan noo jooga ha naga tegin iyo maaragtay haybad la khadraay labadaa baa jirta jibuuti idan istiraatiijiyadda jibuuti ka jirta waxa weeyaan waa istiraatiijiyadaas noocaasa soomaalina waa noocaas maha istiraatiijiyad waxaas idan waxaanu imanaa ikhwaani fillah سؤال باك جوابينا مقالة مقدشو سيداد اكتهين دمانتين سيداد اكتهين مقدشو ومقالو تاريخيا مقدشو واحد جرتا وحكا بدن كون سنضوط مقدشو وعاصمة صوماليات عاصمة هجرة كوا اوغو مقع دير والله بو صدح مقدشو وحيلادة هي بوليتيكال جيوغرافي سياسية او قارة waxa dhex taala badda cas iyo badweynta Hindiya magaalada Muqdisho waxa ay tahay deegaan waxay ku taalaa hawadeedu uu dhadhaxad yahay oo aad u qurux badan oo nolosha naajirku ay ka hirgalayso Muqdisho waxay ku jirtaa magaalooyinka kobaca bini aadamnimo oo si laxaad la uga socdo filista dhismuhuna si laxaad la maanta uga socdo 2 مليون iyo bad ilaa 3 malyan oo qof baa magaalada xamar kaligeed degan quwad bashariya iyo magaalada fadhida dad kala duwan baa degan waa run dad baa u badan laakiin qabaa'il Soomaaliyeed oo kala duwan iyo magaalada soo dhisi doonto oo deganna waxyaalada ay gaarka la tahay waxa kamid ah Muqdisho kobac tacliimeed baa ka socda ee dhinacan ka eegay anigu waxa ka socda aqoontii baa kordhaysa walow kam ahaan ay kordhayso xagga tayada maaha tira ahaan jaamacado 10 ka badan iskuulo dhexe oonan aad u badan iskuulo sare oo aad u badan iskoolo hoose oo aad u badan iskoolo gaar loo leeyahay waxa u socda wax aan caadi ahayn baa ka socda Muqdisho waxa ka socda dhaqaale ta'siiriya geeska Afrika oo dhan suuqa bakaaraha la yiraahdo subaxa marka la furo sarifku meeshaas iyo dhaqdhaqaaqa magaalada meesha suuqa bakaaraha ka dhaca wuxuu ta'siiriyaa Nairobi wuxuu ta'siiriyaa Dar es Salaam wuxuu ta'siiriyaa Addis Ababa wuxuu ta'siiriyaa gobolada dhan wuxuu ta'siiriyaa u raadiyaa dhaqdhaqaaq aad u fara badan oo geeska Afrika ka jira marka bakaaruhu waa suuqa aan iraahdo wuxuu noqon doonaa suuqa geeska Afrika amba Afrika oo dhan hagi doona dhaqaalaha geeska Afrika oo dhan waxa weeyaan Soomaaliya noloshiiba u soo noqonaysa waxayna ka soo noqonaysaa dadkiiba doonaya inay noolaadaan raba inay noolaadaan okay arinta iyadoo ay Soomaaliya ka jirto hadaba
magaalada muqdisho oo sida ay wax u socdaan oo dadku ay ta'hiilul xayaat noloshii rehabilitation ay soo samaynayaan baa had iyo jeer ay dhacaysaa muhadidaad waxyaalaha hadidaya amniga soomaaliya gaar ahaan muqdisho waxyaalada muqdisho hadida amnigeega securitygeega maxaa ka mid a waxaa ka mid a waxyaalada muqdisho amnigeega hadidaya waxaa ka mid a habka ay muqdisho u dhismayso waa inaan fikirno baya waa kow waxaa waxyaalada hadidaya ee dhibaato ku haya amniga muqdisho waxaa ka mid a dadka siday iskugu socdaan aanan control ku hoos jirin si caadiya loo socdo waa arrin hadidaysa amniga soomaaliya gaar ahaan caasimadda waxyaalada hadidaya waxaa ka mid a oo muhadid ku ah waxa weeyaan waa furista ay furan tahay hadday kor tahay iyo hadday bad tahay iyo hadday dhul tahayba ay u furan tahay kulla shay waxyaalada hadidaya waxaa ka mid a tacadudul walaa'aat dadku waxay leeyihiin walaa'aad abtirsiino badan dadku waxay amar ka qaataan xarakatu shabaab waxay siiyaan cashuur waxay siiyaan maaragtay iyakaa dhex gala dadka nabadgelyadooda iyaka casiliya iyaka ayaa hadday laba bayc busharo waaweyn isdiraan iyaka kala walaa bay u leeyihiin dadka qaarkoodna dowladday walaa u leeyihiin dadka qaarkoodna dibadday walaa u leeyihiin oo wadano kale iyo walaa u leeyihiin waxa weeyaan waxaas oo dhan tacadudul intimaa'aat walwalaa'aat waa muhadid amniya securityga tamaasuka daakhiliga ayuu keenayaa marka aan rabno annaku oo ah magaaladii muqdisho u fikirayna nabadgelyadeeda ilaa waa caasimadii qawmiga ah waxaa dhacaya in aan garanno inaan horta la imanno tafkiir aan kaga hortagayno waxaan dhacaya tafkiirka markaa soomaaliya maanta yaalla waa maxay markaan dhegeysto idaacadaha markaan akhriyo buugaanta markaan akhristo istaraatiijiyaadka aan dhegeysto sida looga sheekeeyo xataa reer galbeedku markay ka hadleen amniga soomaaliya in badan baan dhegeystay in badan baan wax ka akhriyay waxaa ila soo baxday in ay yaalaan 4 shay oo 4tuba ay qaldan yihiin kow ta koobaad waxa weeyaan التفكير على العشوائي للأمن إن أمرك أي أمني أو حمادة أون ليسكوي مادة أو لغا فكره إن سكيورتي لغا فكره عشوائي كمارتي مدحتوي سوق فكرته رئيس الوزراء سوق فكره قلنا مخابرات سوق فكران عيدا سوق فكره بوليس سوق فكره قلوي كمارتي maxaan ku dhahdaa mujtamaca hadduu jiraba bulshada rayidku ay si uga fikiraan odayaasha iyo ugaasyada iyo salaadiintu si uga fikiraan culummadu si uga fikiraan waa ashwaay ninba see la tahay waa tafkiir hawaa'i kaasi waa mid jira ani waxay ila tahay bay leedahay amnigu sidaa maaha adigu waxay kula tahay maaha amnigu wuxuu leeyahay khudad la dhigo khudad kale oo badiila khudad kale oo badiilul badiil la dhahdo saddex baa la dhigaa waxaa la dhigaa planning laga hortagayo amni xumada mid labaad baa la dhigaa oo ah كبديلة هديك أو حماده مثل ده حد بقى رجع رضاه هدي الله بدو حماده عن محب بديلة A B C D بقى رجع أوكي واتكوبات عز وحاجر التفكير آني إمي كم حد عي إمي كان فكرنا وآني إمي كان في لحظة ضم وحيوب حين عمود قاركود التفكير اللحظي للأمن وكعربته كله أوكي سوشيك هدي أتكبر تقف قرح سماريا هذا واحد اسمه سوشيك واحد إيه وأمن لحظي لحظة ضابة لأني أمني taasina waxa weeyaan waa wax ku xidhan waqti amnigu waqti kuma xidhno kanada qarax kama dhaco laakiin amnigu uu soo jeedaa dowladdu way soo jeedaa shicibku uu soo jeedaa dad kaniisadu way soo jeedaa masaajidku uu soo jeedaa dadka oo dhan waxay ka shaqeeyaan amniga li'anno amnigu uu khuseeyaa qof kastiba waa inuu caawa seexan karo uu beri soo toosi karo hawshiisa tagi karo baskiisa raaci karo كلنا مسؤولون عن الأمن دمانتين وحن مسؤول كنهي سكيورتي كان مسؤول كنهي مركز طلبات واتها أردت وين التفكير الانفعالي التفكير كعرض قصة يسمى حمر بقرح كده عيوال ودوية مركز بالدجينية محاسن له يلي هذا مش تفكير استراتيجي كمان وانفعالي بعد هذا انفعالي ظاهرة صوتية سيستم كعربت ويان عربت انت عن اسلامك عرفت عن كبرنا بقى انت لان انا waxaan isku laaqnaa al-islaam wal arabiyya arabta dhaqankayga baan qaadanay maadaama 30 sano timir ay nasiinayeen wayna arabiyeen hatta aqliyadeena amniga ahayd waxay ka dhigeen systemka noocan oo kale ah ee inficaaliga ah aan lahayn khudad iyo istaraatiijiyad aan lahayn
وحرد وزارة أرمها جودها إعربته ووزارة إلى لسا نقص كدتك تا أمني ما هو شيء دونا دتك نفسنا توا إلى لسا وكتبتك تا ولا حرتا عقلية مخابراتية ومخابرات نمو دتك لا دبا غرو لا دبا سocdo تينا waa la qaatay waa la sheegay xamar systemka in la qaatay laakiin ma soconay systemkaasi waxaa jira nooc afraad ah tafkiir al-amn lil-amn ina security-ga looga fikiro si security-ga arintaasi horay baa loo diiday waxaa la yiraahdaa bari baa shir lagu qabtay Kuwait waxaa qabatay culimada tarbiyada waxay yiraahdeen maada yuriidu at-tarbawiyuna min al-i'laamiyin dadka education ka shaqeeya tarbiyada ka shaqeeya maxay ka rabaan dadka ka shaqeeya warbaahinta سؤاشا وحا كدارتي سؤال كله ماذا يريد الإعلاميون من التربويين دادك كشقايا إعلامك يروبوريتو ما حي كربان تربويين تا سؤاشا سؤاش ده حد ما كدرشي ماذا يريد التربويون والإعلاميون من السياسيين ما حي كربان دادك تربيتك كشقايا يورباهيتو سياسيين تا سؤال أفراد ما كدارتي ماذا يريد الإعلاميون والتربويون والسياسيون من الاستراتيجيين ما حي انتو بكربان علماء استراتيجيكالكا إذا سؤاشي maxay ku soo noqotay ru'ya istiraatiijiya inay jirto vision istiraatiijiya oo tarbiyada lagu dajiyo tacliinta lagu dajiyo dhaqaalaha lagu dajiyo warbaahinta lagu dajiyo siyaasadda lagu dajiyo ummadda aragti istiraatiijiya leh ayaa najaxda walidaalika waxay dhahdaan al-umam al-azima ummadaha waaweyn tatahaddasu can al-injaazaat al-azima waxay ka sheekeeyaan wax soo saarka waaweyn saaka iyo shalay iyo daraad turkiga waxaa looga dabaaldegaya baabuurkii ugu horeeyay koronto ku socday sameeyaan injaaz usbuuc koor bil koor waxay u dabaaldegayeen inay sameeyeen markabkii ugu horeeyay barmaaya badda iyo biyaha isku xidhaya bariga iyo badda ee diyaarada ka dul doosayaan waxay u dabaaldegayeen qablaha inay sameeyeen madfac qaaradaha ka tallaabaya waxay u dabaaldegayeen ka hor inay fureen madaarka adduunka ugu weyn waxay u dabaaldegayeen inay fureen بريشكا أدونك وين إنجازات عظيمة الأمم العظيمة تتحدث عن الإنجازات العظيمة والأمم الصغيرة ضهير الضعيفة تتحدث عن الأشخاص دتك كشاكيان يعني هبلايو بقرة دي بقر كيو كي وحنا إلى دتك العتي ولا جاي شطاي إنك جيبوتي وقال إن جيل العتي كقبشة خضر حد بقبشتي وإن أويان سي أويا روسيس وإن هسا سي وحي وصو سيديسو أم وصو سيدايو هذه العقليات الصغيرة وإن لا كالي هبل هجوتا كندا جوجا كالي حنكو يردي بناي حقيقة هذا صدق كون هذا كالي أنا بقول سيرنا وأرض سيدايو هدو ترى عنها لقطه هذه الأمم الصغيرة الضعيفة إخواني في الله تفكير شنادي وقدام بيوا محي وكهلوبا هي التفكير الشامل الاستراتيجي يلا دجيا تفكير شاملة واستراتيجية ومفهوم كأمني قالوا صالحين أمني ومحاطة هي بارت الله الله سكيورتي محوية سكيورتي مقرح بعوايا ما هي قرح مريكان بكرعي الدوق دولته وحو بدن قرح بكرعي علوصا قرح وكدعي كرا مقالة والبكرعي هل كان كنا لو كدعي فرنسا بكرعي إنجليز بكرعي قرحه أستراليا بكرعي قرحه ودعي كرا لكن هدو قرح كدعي مقالة يرى كتا الله وقبل وطن هرمر قاري كما دقنو وطن كاسي أمليسي هل اسمه قاري لأنه وأرني يرى دعضي أرنتاسي والحليقرة محاجر وحلنيا وحايا مفهوم الأمن الشامل مفهوم الأمن الإنساني وحلو به إياه يالا أحبابي في الإسلام والله ليا وحويا مركو إلهي سورة النحل كغورمي قرية وحولي كانت آمنة مطمئنة يأتي رزقها رغدا من كل مكان انتهوا إلهي لنفسه قرية وهجت ومقال وقبل ودولة وحضارة وقل ما حي صفات لها آمنة وأمن سكيورتي مطمئنة ولا دقيقة تقوي دقيقة ويحصلان نين والبا شقديسو تغا اسكولكيسو تغا دكتوركيسو تغا مارتي مسكيتكيسو تغا كنيسديسو تغا مطمئنة يأتيها وحا يماد رزقها وحا يباهين ددكو رغدا اسغو كلا غو لهين وفرة بوحا أو كيمادا من كل مكان أدونك ودنبو كيمادا هذه المفهوم سورة النحل باكا شاكيلسا إلهي مركا وحكا ورمي إني ددك قاركود اسكدو ميان وحاسو كلا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إلهي هد يجروح إسرائيل الخوف والجوع مكة هران الجوع والخوف عبسدا إيا قاجدا إيا عبسدو اللهم إني أعوذ بك من الجوع
فإنه بئس الضجيع رسولك إلهي بكنا بدقلي صلى الله عليه وسلم مركا جوعو إسلا كان عبسدا بدنا يدا كانت قاجدا ودنك الدقالة كدعان قاجة كدعدا ودنك قاجة كجيران الدقالة كتصعدا هذا ومعادلة عادية جدا إلهي آيادا كذبوا كذبا كان ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون إلهي وحو صدري والأمن الفكري أمن الفكري رسول بو صدري ويبينيين إلهي مركا عذاب بكو قاضي يكو ظالمين dadku intaynan helin amni siyaasiya iyo amni dhaqaale iyo amni waa inay helaan amni fikriya amni ideolojiya waa inay helaan amni caqadi ah wahum zaalimuun markaa buu ilaahay yidhi haddaad waxaa garataan fakuluu mima razaqakum allahu xalaalan tayiba washkuruu nicmata allahi in kuntum iyaahu tacbuduun markaa cuna wuxuu ilaahayna siiyey uu buuxiyey iyadoo xalaala oo macaan cuna oo tayiba oo ilaahayna u mahadnaqa oo nicmada ilaaliya haddii aad tihiin kuwa ilaahay caabudaya tabaaraka wa tacaala ikhwaani fillah ku fiicnaa ninka dhacdo 2000 markay taariikhdu ahayd ninkii ahaan jiray madoobaay ee jimciyadda qurmaha ka dhaxaysa ka ahaan jiray secretary general ka ahaan jiray general secretary ka ahaan jiray secretary caam ka ahaan jiray baaratay ninkaas xogayaha guud ka ahaa wuxuu ka jeediyay khudbad jimciyadda qurmaha ka dhaxaysa wuxuu sharxay waxa loo yaqaano amnul insani inay bini aadamku u baahayeen security social awal waxaa jira waxa la amnu dawla ila dawladda la ilaaliyo xuduudeeda hawadeeda iyo badeeda waxa markii dambe la keenay amnul afraad in la ilaaliyo dadka bini aadamka waxani waxa la yiri waxan sax ma aha amnigu inta uu ka balaaran yahay waa maxay amnigu waa amnigu waa shumuul bari waa insani waa in bini aadamka oo dhan la ilaaliyo markaan istiraatiijiyad la dagaalamaysa gaajada markaan dajino amni baan sameeynaa marka aan sameeynay istiraatiijiyad jahliga la dagaalamaysa oo dadka cilmiga baraysa amni baan sameeynay marka aan dadka u dhisno jidad iyo dikado iyo dariiqyo la mari karo oo baabuurada iyo maartay raadiyatu nolosh biniya tahtiya dawladda hoosti marka aan dhisno isku xidhno oo sameeyno maartay shabakatu macluumaat ittisaalaat communication waxaan sameeynay amni baan sameeynay marka aan caafimaadka ka shaqeyno oo dadka labadiiba la sameeyo caafimaadkii ka hortagga cudurrada iyo cudurrada in la baabiyo labadaba marka aan la dagaalano waxaan sameeynay maartay amni baan sameeynay marka aan dadka umrigooga laga fikiro inuu dheeraado oo 70 iyo 75 uu gaaro waxaan sameeynay amni maanta 45 jir iyo 50 jir bay Soomaaliya ku dhintaan wixii de rasaas u deysaba العمر المتوقع جيبوتينا شري كوتون iyo 50 jir ragii haweenku intaas ay ku dhintaan jimcida qurmaha 2010 bay soo saartay idan waxay taas ku tusaysaa ikhwaani fillah su'aashan aan ka hadlayno amni markuu ka hadlay wuxuu yiri amnigu waa baahida ugu asaasisan ee qofka bini aadamkii u baahan yahay nolosha daraadeed mafhuumka amniguna waa maxay buuri waa inuu qofku ku xasilo meesha uu degan yahay waa inuu garto inuu yahay qof meesha laga lahayn qof meesha loo sheeganayn qof meesha laga ceshanayn qof meesha laga raafayn qof meesha loo diidayn qof meesha ku noolaan kara qof meesha horumar gaarsiin kara qof meesha horumarkeega ka faa'iideysan kara qof meesha qof meeshu ay leedahay هذه العقلية يرى اطمئنان وحصلها marka xasilada maxay ka imanaysaa confiance siqay ka imanaysaa siqadu waa maxay waa confiance waa kalsoonidu xaqay ka imanaysaa waxay ka imanaysaa wuxuu kalsoon yahay in ayna ku dhacayn baahi inayna ku dhacayn gaajo inayna ku dhacayn cabsi inayna ku dhacayn dib u dhac inayna ku dhacayn cunf argagixisnimo in laga hor imanay okay su'aashaas quraanka ilaahay tabaaraka wa taala uu inooga jawaabay arkeenay suuratu nahl حديث النبي عجيب صلى الله عليه وسلم نبي وحوري عليه الصلاة والسلام قفك من أصبح منكم نك إني جميلة أو ساك واجو أبريو يستجوا آمنا يا آمنا نبت قبا سكرتي هروك نبت قبا في سربه جريسا في سربه ديجان كيسا في سربه ودن كيسا في سربه دولة ديسا في سربه عالم كيسا ضد بهالكا العالم كله وسرب الإنسان ابن الأرض ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا الوطن وطن هو هالكي ودولكا دولكا وطن كيني وي هدي وطن كوردن نبدي كدي ويدو أوكي ما عنده الدراسة الأخيرة الجيريا أم الجزائر الجزائر
haddii ay ka dhacdo qarax iyo maaragtay dagaal sokeeyo maxaa waddanka ugu horeeya ee halis galaya waa halkee waa faransiiska hadduu faransiisku halis gala maxaa halis galaya yurub oo dhan yurub haddii halis gasho maxaa halis galaya ammaanka adduunka oo dhan waa aljeeriya haddii wax ka dhacdo idan waxaa la gaarsiiyey amniga halka itminaankii rasuulku muxuu leeyahay man asbaxa minkum aaminan man asbaxa minkum ninka iniga mida ee ummadda islaamka bini aadan ka mid ah ee ku badbaada sirbigiisa waa kow mafhuumka shaamilka amniga ee insaaniga ah ee uu ka fiicanaan ka warramaya 2000 sano ka hor buu nabigu ina barayaa diintani waan haysanaa un mucaafan fi jasadi alamnu sixi caafimaadka jirkiisuna buuxo caafimaad qaba jir ahaan jirkiisu caafimaad qabaa okay xumad yar ayaa jabuuti laysay kuma boqolaal qof yacni haddaan been iska ero dad ka toka badan maalin walba waxaa ku qoran maxaan ku dhahdaa maaragtay needka waxaa ku qoran inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun heblaaye hebel baa go'day hebel baa go'ay maxay ku go'een 5 6 7 qof 4 3 maxay ku go'een xumaddu hagee ka imatay laa diraasata hunaa diraasa ma jirto dhakhtaradu ma fikirayaan lianna dhakhtaradu waxay ku fikiraan inay horta dowladdu dejiso siyaasa amniya oo laga hortagayo cudurrada ma jiro okay problem weyn baa waddanka ka jira marka dadkii maxay ku dhimanayaan qabuuri baa buuxsamay qabuurihii la oran jiray beekaaga 12aad beekaaduus imtala'at can bakrati abiha 7 sano gudaheeda 7 sano ayay qabuurihii meel qof lagu aasay ayna jirin annaas yamuutuun taabuur bay ugu jiraan geerida ilaahay baa laynaya baa dadka laga dhaaqnaya ilaahay waa looga dhow yahay layntooda gaajaa laynaysa cudurraa laynaya waxaa laynaya ya'si murugo waxaa laynaya calaacal waxaa laynaya oohin waxaa laynaysa meel ay maraan markay waayaan inay iska dhintaan haakada yamuutuun kitaab waxaa jira dhahdo alcaalamu alislaami bayna alxirmaan watakhalluf caalamka islaamku dhex yaalla xirmaan inay waxay cunaan bahaysan iyo takhalluf okay mushkiladda aan ka hadlayna markaas waa maxay waxaan ka hadlaynaa qofku allaba inuu haysto jirkiisu inuu caafimaad qabo waa security cindahu quutu yawmihi waa inuu haysto wuxuu cunayay maalin walbaba hadduu haysto rasuulku muxuu yidhi adduunkii oo dhan baa loo keenay hada huwa almafhuumu shaamil lilamn marka dowladuhu markay fikirayaan dhalinyaradu maxay uga mid noqonayaan xarakatu shabaab maxay u galayaan muxuu qofku u noqonayaa mutadarrif 3 shay buu noqonayaa diraaso anigu aan imika aan wado waxa ka mid ah waxaa ii soo baxay qofka Soomaaliga ah waxyaalada u keena inuu noqdo mutadarrif xag jirnimada maxaa ugu wacan 3 shay weeyaan kow alxirmaan baahida gaajada waxaas oo dhan waa kow laba waxa ugu wacan aljahl cilmi la'aanta aqoon la'aanta bas qofka madaxiisa laga buuxinayo 2 3 10 6 ayadood inta kale laga mamnuucayo tafaasiirta kale loo diiday ra'yi qura dhageyso aaraada kale ha maqlin aqwaasha culimada ha dhageysanin afkaarta culimada maalta waxa dhada kuwa culimada waxa dhada dunya ee culimada aakhirada dhageyso baa laga leeyahay marka waxa baa la gaari baa laga dhigaya dhinaca faraska laga xidhay laba dhanba baa laga dhigaya meel adduun arkay ma jiro arrinta saddexaad waxa weeye albadaawa والدخول في القفص badownimada dad iska baadiye ah oo maaragtay noloshuba ku adkayd baa waxaa ku dhacay sadamaad xadaariya waxaa ku dhacay shock baa ku dhacay argagax ilbaxnimo yaa ku dhacay dowladdu waxay heleen yar oo 60kii oo madani ah markiiba way dhacday tu caskari oo wararsan baa imatay markiiba way dhacday waxa uu imatay dowlad la'aan iyana waa la sii wareeray waxa uu yimid wadaado waalan baa mar helay way sii waaleen waxa uu yimid maaragtay qabqabalayaal way wareeriyeen wareer ummadii markaa maxaa ku dhacay yas waa isku mid inuu noolaado iyo inuu dhinto inuu geeriyoodo iyo inuu noolaado labadu way u sameeyeen marka waxaas wuxuu abuurayaa dad wada adag oo wada mutakhalifiin ah oo raba inay wax dumiyaan walidaalika ayuha alikhwa qofku intaa hadduu haysto wuu baxayaa marka xamar maxaa laynaya qaraxyaa lagu leeyahay dadkii maanta dadka dhintay walaalayaal dhalinyaro jaamacadda ku socotay macnay leedahay ninka intuu hub soo ururiyey laynaya meeshii baabuurku uu maaragtay
cashuuraha iyo lagu qaadayay kala bayrkii intuu soo joogsado ugu talagalay waqtigii ay dadku dirwada ugu badnaayeen inuu qarax sameeyo hada tafkiir الاستراتيجي لتهديد الامن wuxuu qofkaasi doonayaa wuxuu inoo diidan yahay inaan noolaano wuxuu inoo diidan yahay inaan mustaqbalka aragno wuxuu inoo diidan yahay inaan dad noqono bal wuxuu inoo diidan yahay inaan rajeeyano rajadu inaga baabinaya ciyaal yar oo jaamicadda banaadir ku socday intooda ugu badan oo bas ka buuxay oo habla iyo inamaba leh oo doonaya inay mustaqbal sameeyaan hooyo iyo aabbo suuqa fadhiyo naftu ka baxdayna ay dharyar u soo gasheen buugaan u iibsheen jaamacadda lacag ka bixinayaan oo ay leeyihiin wax noqda si aan annaguna wax u noqono ilmo yar oo mukhadram ah oo ka fikiraya inuu wax isku taro qoyskiisiina wax u taro kuwa soo socdana wax u taro mujtamaciisana wax u taro ilmo yar oo ka fikiraya in nolosha laga hor qaado la qadar jabiyo oo la maartay la qalbi jabiyo oo la jabiyo kuwa saa ku fikiraya waa acdaa waa cadow waxay cadow u yihiin wadanka iyo diinta iyo dadkaba marka ka hortageegu uma baahno hadal waan ka xunnahay uma baahno waan canfaaraynayna wuxuu u baahan yahay in mafhuumka shaamilka la dajiyo arinta cajiibka marka wax way ikhwaani fillah xadiiskii waa kaas quraankii waa kaas waaqici waa ka adduunku suu fikray waa ka annaka maxaa inaga dhigay dad si kale u fikira dad markan Soomaaliya joognana ka fikirayo inaan noolaano markaan Djibouti joognana ka fikiray inaan noolaano Soomaaliland ka fikiray inaan noolaano oon iska noolaano inaan ahaano maxaa inaga dhigay limaada la nufakir maxaan u fikir laanahay limaada la nafsuur maxaan revolution u sameyn laanahay la nurid waxaan marrabna maxaan oran laanahay limaada su'aasha wayna isweydiino ولذلك إخواني في الله waxay dhahdaan maanta culimada waaweyn ee amniga ka shaqeeya biduuni tacliim xaqiiqi haddayna jirin aqoon dhab ah amni ma jiro aqoonta dhabtii markaa waa maxay waa aqoonta aan ahayn aqoonta shacabka u tumaysa qof aanan loo tumin dictator hadduu qofku aqoonyahanka shacabka u tumayo aqoonyahan maaha aqoontu waa inay ku xorayso Karl Marx wuxuu oran jiray macrifa qaliila tajcaluka cabdan ta aqoon yari waxay ka dhigi adoon macrifa mutawassita tajcaluka nisfa cabdin معرفة أقون دحادنا وحي كادي نص الضوء معرفة حقيقية تجعلك حرا مركز هشيد معرفة دبنا وحي كادي قف حرا كادي يسا إذن لابد من التعليم لبو وحاكم إذا وحيالة قفك بني آدم كسكريتي يسا رعاية صحية إنه قفك كبقين إنه جرة يكون عضو أو أي كان يعدي لي كرتو كان يعو أم بأودي لي كرمحان كورا هذا إن حمضي أم بأيدي كرت محان كل هذا شبنير أم بمارت على الطاعون واحد مو كذا ماضي إنه كبر إكره أم بالسيداء أيديس وكبر إكره وحاس قفك وإنه كحره لابد من الرعاية وإنه قفك هيشتو إلى لين عافمات ما عافمات هو وحلا يقانو دكتور كاتجي يقدر كليب بكوقول ليس هذا رعاية هذا تسمى علاج والجدوينية لكن رعاية صحية إن لو إلى لين عافمات وإن يجتو أنا أفراد واحد هذا وإن يجرتو قفكم مركو سوكعو إنه كسوكعو جوري ونكسر سكن كريم ما يورن جوري بلار ما يورن جوري عيني أنا ما يورن جوري قصري أماها سكن كريم جوري أقل ما إنه قروح القرآن سكن لائق ديجان أقل ما قفكو إنه قالي كرو هوله لك رجع هوايانك كلا سيحان كران waalidkii ciyaal kala dheeraan karaan meel television ay ku daawadaan leh meel ay wax ku akhristaan leh marka waa inay haystaan waa waxyaalada la dagaalama amni xumada ka mid tahay amni baan ka sheekeynaa been baan sheekeynaa waxyaalada waxaa ka mid ah damaan xurriyatu tacbiir dadku inay hadli karaan xurriyatu tacbiir waa inay haystaan waa inay hadli karaan sida ay doonaan waxay dhahdaan waa in laga ilaaliyo qofka kale حماية الإنسان من الإنسان قفك كدليا وهي لقايل عليه قفك ماذا كها قبصانيا وهي لقايل عليه قفك كحريا جريتان كاغا هي إن الدول نقطي وهي لقايل عليه قانون وإنه جركايل عليه دولة حماية الإنسان من تغور الدولة دولة ورابين لقطة وهي لقايل عليه وحماية الإنسان إن إنسان كان لقايل عليه إنه دولة دومية سبنا كل هذا يحتاج إلى أمن وحكلو أمنية كمدة إن دتك لقى إلاليو محي إن لقى إلاليو وحلو يقارنو التدهور إن يبربرتو إن الدمان بيئة إنفيرونمنت إن الدمان ولذلك وحي علماء الأعلام
amni marka maanta laga hadlayo waa inuu qofku amni financier haysto, waa inuu lacag haysto, waa inuu cala alaqal koontada wax ugu jiraan, waa inuu wax la soo bixi karo, wuxuu bixin karo, wax iibsan karo, wax gadan karo. hadduunan haysan amni ma jiro. caqligeena aan ka saarno amni baan samaynaa dad gaajoonaya, waa been weeyaan. mukhaabaraad sds jabuuti iyo mukhaabaraadka xamar ka jira iyo kuwa somaliland ka jira iyo kuwa etoobiya ka jira laa yasnacuuna amnan maca alkhawf, ma samayn karaan amni iyadoo ay jirto cabsi. laa yasnacuun. marka laabudda min alamn almaali, qofku inuu maal ahaan wax haysto. labo, amni qidaa'i, waa inay dadku waxay cunaan haystaan, waa inay raashin haystaan, waa inay afka wax gelin karaan, waa inay calooshooda soo tiirin karaan. laa amna biduuni dalik. haddii waxaa la waaye amni ma jiro. waxaa loo baahan yahay inay dadku haystaan security caafimaada. maaha waraaqad been oo la sameeyo oo dadka lacag laga gooyo oo lacagtaa guryo laga dhista, maaha. hada kalaam faariq. laakiin waa amni sixi ah oo dadku ay haystaan. alamni الشخصي, qofku waa inuu shakhsiyadiisu ammaan qabto. alamni المجتمعي, mujtamac waa inuu kala ammaan qabo. waa inay reerka qurac uu ka nabad galo reerka dhagax, reerka dhagaxna waa inuu ka nabad galo reerka dhul. waa inay shucuubtu kala nabad galaan. waa inay dad ku noolaadaan salaam ijtimaaci, salaam bulsho waa inay ku noolaadaan. waa inaa aws iyo khasraj la mideeyo, waa inaa ansaarta iyo muhaajiriinta la mideeyo. waa in la sameeyo alwatan alum, wadan hooyo ah oo kullu naas yaciishuuna fiihi walahu wamacahu wabihi. wadan dadku ay ku dhex nool yihiin, ay u nool yihiin, ay maaragtay ay dhisayaan, isaguna dhisaya. waa in la sameeyo. kullu dalik yaxtaaj ilaa mafaahiimta inaan bedelo yaa loo baahan yahay. alamni siyaasi, waxaa loo baahan yahay amniga politicalka, inay dadku axzaab samaystaan oo xisbigu wuu dhashaaye la oran waan ku ictiraafaynaa. khaladada ugu weyn afrika jira waa maxay? xisbiga waxa leeyahay kaana waan ictiraafsanahay, kaana ma ictiraafsanin. man acdaaka xaqu lictiraaf. qofku markuu dhasho acte de naissance baa jabuuti la siiyaa, waxaa la siiyaa shahaadatu lmiilaad, uu dhashay uun. xisbigu markuu dhasho waxaad siinaysaa waraaqadii dhalmada, laakiin ma weydiinaysid maxaa u dhalatay. waan dhashay, dastuurka dhalaygi waan dhashay, khalaas. marka waa inay ictiraaftiin inaan dhashay. marka adduunka lama arag xisbigaasi muxuu u dhashay ilaa adduunka saddexaad maahine. dad baa dhan maraykanka laba xisbi baa ka jira, maraykanka boqolaal xisbi baa ka jira, laakiin laba xisbi oo dadku ku kala xidhmeen. waa inay jiraan boqolaal xisbi, laakiin laba unbaa soo akhiiran laa yasixu ila saxiix. kanada waxaa ka jira boqolaal xisbi, laakiin laba xisbi saddex xisbi waa muhiima. adduunku waa sidaa. israa'iil waxaa ka jira boqolaal xisbi, laakiin afar xisbi waa xoog badan. turkiga waxaa ka jira tobaneeye labaataneeye xisbi, laakiin shan xisbi waa xoog badan. hadihi alxayaat. laakiin lama oran karo xisbiga muxuu jiraa kaasina muxuu jiri kara. la waxaas afrika ka jira. alamnu siyaasi baa loo baahayay. ikhwaani fillah, haddaba walaalayaal, dadka xamar waxaa laynaya in la sheegayaa. dadka xamar waxaa laynaya doqonnimada dowladda iyo xoolanimada dadka madaxda qabaa'isha xukuma oo aanan u fikirayn waxaas, aanan ka fikirayn iyaa laynaya. waxaa laynaya waxaa ka mid ah culummada aanan dadka ku tarbiyadeynaya ra'yi qura, oon ku tarbiyadeynaya inay jiraan aaraa badan, sida kitaabka uu qoray ibn rushd fi lmas'alati aqwaal, aqwaasha aan soo wada bandhigayne qowlun dadka u sheegaya. dadka waxaa laynaya ikhwaani fillah, waxaa laynaya cadowga dibadda oo aan indhaha ka qabsan karin, oo imaaraadka ugu horeeyo, kii doonay ha doono, kii diiday ha diido, kuwaasaa laynaya. dadka waxaa laynaya cadowga istiraatiijiga ee ummadda soomaaliyeed. dadka waxaa laynaya xumadda jabuuti ka jirta, waxaa keenaya waxa weeyaan jaahilnimada aqoonta cilmiyeed, aqoonta dhaqaale, aqoonta siyaasadeed ee waxaas oo dhan ka jirta. waxaas oo dhan baa dadka laynaya ikhwaani fillah. marka maxaa la rabaa? waxaa la rabaa laba shay oo quraata ayaa la rabaa. shayga ugu horeeya waxa weeyaan alxuriya, dadku inay xuroobaan. shayga labaad ee la raba waxa weeyaan in la sameeyo barnaamij loo dhan yahay oo aan dowlad ku xidhnayn, oon mucaarad ku xidhnayn, oo shacbi weynuhu uu leeyahay, oo istaraatiijikala. inta laga helayo waxaan ku jiraynaa xalaqada mufriqa ah ee aan dhammaanayn insha allahu tacaala. dhammaantiin waa mahadsantihiin. waxaan naga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.